بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad ayaan idin salaamayaa asxaabta qaaliga ee ku xiran channelkeena Lovely Channel. bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan idin salaamaya asxaabta qaaliga ee ku xiran channelkeena Lovely. waa mar kale iyo Lovely Channel iyo video cusub iyo alaab cusub. maanta Lovely Channel waxay idin wadaa alaabta asxaabey. waa qaybta dietka. waa qado yaroo kaaliska araga oo aada u fudud oo maasha allah ah oo waxaan ku leeyahay calool gashi ku ah bariis iyo baasto iyo waxaan ku leeyahay wax daqiiq la-aan ahayn. alaabtaasaad ujeedaan waxa aan ka sameeyey videoga bilow ee dhamaystir la socda insha allah. haddaad doonaysid inaad ogaatid waxyaabaha aan ka sameeyey ila soco videoga bilow iyo dhamaystir asxaabey. maasha allah waad arkaysaan siduu eegyahay quruxda. waxaan ka sameeyey spinach ayaan halkaa ku haystaa. halkaana waa hilib. digaag ayaad ka dhigan kartaa. digaaga waa inaad karisid. hilibka waan soo kariyey digsiga pressureka ayaan ku kariyey. waxaan rabaa hilibka inuu mutuutuqo ayaa la rabaa. haddii kale digsi caadiya ku kari laakiin hilibka waa inuu jilco. maasha allah 2 xabo yaanyaa 1 xabo basala. hadda waxaan sameynayaa insha allah waxaan dalaacayaa spinachka waa qaybti healthy. waa cunto healthy qado fuul ah maasha allah low carb ah oo waxaan ku leeyahay aad ku gaajooneynin. waxaan sameynayaa insha allah hadda waxaan sameynaya basasha ayaan jarjarayaa kabacdi la socda videoga bilow ee dhamaystir asxaabey step by step. hilibka wuu ii karsan yahay waan soo kariyey biyo bes ayaan ku kariyey cusbo kuma darin waxba kuma darin. pressureka ayaa digsiga pressurekan hal mar haf ku siiyey. digsi caadiyana waad ku karsan kartaan. digaagna waad ka dhigan kartaan asxaabey. chicken waad ka sameysan kartaan. muhiimada waa inuu jilco uu wax mutuutaqay uu noqdo hilibku. okay saliidaan ku isticmaalay waa olive oil. yaanyadii waan jarjartay hadda. wax kale kuma daray asxaabey. baradho kuma daray kaarid kuma daray wax kale kuma daray. waa spinachkaas iyo barbarooni iyo yaanyadaas intaas kaliya weeyaan. hilibka wixii lafo waan ka guuraysaa. waxaa la rabaa hilibka jiirka bes. hilibka waa hilib arig. hilibka geelka hadduu kuu jilcayo waa okay. hilibka lo-da isaga laftarkiisa waa okay. hilibka ariga haddaa rabtid saas oo kale waa inaad hilibka ka saartid oo aada lafaha dhan aad ka ilaalisid. wax lafa ka ilaaliya ka gura hilibka lama rabo in waxaan ku leeyahay wax lafi ay la socoto. baruurta iyo waxaas waan ka wada saarayaa. haddaad baruurta jeceshahayna ha kuugu jirto. digaag haddaa rabtidna digaaga markaad karisid okay weeyaan. basashi ayaan hadda saartay. basashi golden brown markay noqoto yaanyada ayaan ku darayaa xoogaa intaa haf markay isla jiraahdaan isla yara bislaadaan hilibka ayaan ku darayaa. masuk sugayo hilibka ayaan ku darayaa xoogaa markay inay isla shaaxidaan oo isla bislaadaan ayaan rabaa. maasha allah bahaaraad badan iyo spices badan kuma daraya asxaabey. waxaan sameynayaa hadda maqligan aan ku sameynayo wuu yaryahay. mid weyn ayaan ku rogayaa. kaaweyn ayaan kusoo ritay maasha allah. waxyaabaha aan isticmaalaya waxa weeyaan broccoli ayaan haystaa, spinach iyo green beans. broccoli haddii wadanka aad joogto aan laga helin kaabash bedelkiisa geli. kaabashka haddaan jeclayna bes spinachka uun ku dayso. kamsaro aan soo yaryareeyey ayaan ku daray asxaabey. kamsaradii ayaan ku daray. kamsarada marka dambena waad ku dari kartaa. marka hore haddana waad ku dari kartaa. waqtigaa doonto ayaad ku dari kartaa. wax dhibaato ah ma laha. alaabta yar haddaad doonto bariis waad u sameysan kartaa. khubis waad u sameysan kartaa. basbaas cagaar weeyaan waxa aan ku daray la socda asxaabey. 1 xabo oo maraq digaagana waan ku daray. wax kasta ama isticmaalayo xabada maraq digaaga ayaa ii dhanaaninaysa. wax yar oo soya sauce ayaan ku darayaa. soya sauce kana xoogaa yar dhanaan yar iyo udgoon yar bay ii sameynaysaa.
toonta bowdharka ayaan ku daray hadda. toonta caadiga waad isticmaali kartaa, waad tumaysaa, waad ku daraysaa, wax dhibaato ama laha. Hawi fududayn aniga toonta bowdharkaan ku daray. kaasna waa coriander powder ama barbarooniga shiidan ama kamsarada shiidan, sorry maha barbarooni shiidan, kamsarada shiidan. xawaash buurbuur, xawaashka yar oo kaariyana waan ku daray. xawaashka oo buurbuurka ah waaye oo shiidan, coriander powder ayaan ku darsaday. udgoon weeyaan marka cuntada kale lagu darsanayo. green beanski ka frozenka ee maaragtay talaagada ku jira ee barafka ayaan isticmaalayaa. isagoo freshna waad isticmaali kartaa asxaabey. kadaasadahan waa isticmaali kartaan, kadaasadaha ku jira. spinachki ayaan ku daray hadda oon soo yaryareeyay. waan isdhex gelinayaa alaabta oo dhan si fiican ayaan ku dhex gelinayaa. waa nafaqo lagu daray insha Allah. intaas markay xoogaa yar isla karto, broccoli ayaan ku darsanayaa asxaabey. wax yar oo filfilana waan ku darsanayaa. soya sauce ayaan ku darayaa hadda. udgoon iyo tasti unbay ii samaynaysaa, wax kale iima siyaadinayso. haddaanad soya sauce hayn faraha ka qaad, waxa dhibaato ama laha uma baahnid. waan idiin sheegay hilib ayaad ka samaysan kartaan, digaag ayaad ka samaysan kartaan, tuuna ayaad ka dhigan kartaan haddaad doontaan. tuunaha daasadaha ayaad ka samaysan kartaan haddaad rabtaan. muhiimadda waxaa la rabaa wax yaroo borotiina inuu ahaado, maadaama baradho aan lagu daraynin yaa oo bariisna aanan ku darsanaynin oo keligii aan cunayo. maasha Allah, waa inaad ku dartid yani hilib ama digaag ama kalluun. malaayga daasadaha maaha malaayga nool. malaayga nool goonidiisa u shiilo haddaad rabtid. vegkana samayso isagoo hilib iyo xubtoona lahayn. haddaad hilib iyo digaag iyo waxaasna aanad rabin, waad ka dayn kartaa. vegkan sida vegetable-kan keliya waad samaysan kartaa, macnaha khudradan bes intanaad ku daysan kartaa. haddaad rabtid inaad bariis ku cuntid, dheecaan u samee. broccoli aan si fiican usoo dhaqay, oon khal kusoo dhaqay, maadaama corona iyo cudurro jiraan. aniga hadda wax kasta yaa wixii afka ka xirana saabuun baan ku dhaqaa, sida tufaaxa iyo canabka, waxyaabahaas oo dhan saabuun ayaan ku dhaqaa. saabuunta maaragtay gacmaha ama shaambooga weelka lagu dhaqo, alaabtaasaan ku dhaqaan, ku nadiifiyaa biyo fiican aan kaga saaraa. haddii ay yihiin waxyaabahan khudrada, khal ayaan ku dhaqaa, biyo ayaan ku dhaqaa marka hore, kadibna khal. ma ogid wax soo taabtay, dadku waa iska xaasideen. markaa si fiican isaga nadiifiyaa khudrada iyo wax kasta ood cunaysaan. filfil yar ayaan ku darsaday asxaabey. broccoli-ga dab badan ma qaato, 2 jeer marka uu waxaan ku leeyahay yara karo. haddaad rabtid barbarooni waan ku darsaday, hadda barbaroonigaan ku daray. haddaad rabtid bariis inaad ku cuntid ama rooti, saas hadda uu yahay dheecaanka uga qaado si bari uu rootiga kuugu qoyso. haddaad rabtid sidayda oo kale, aniga rooti iyo bariis iyo waxba maraba aan ku cuno, keligiis ayaan cunayaa. waa qada healthy, waa qaybta dietka. maanta diet ayaan bilaabay asxaabey yaa. waxaan sameynayaa hal qaado oo waranga ayaan ku darsanayaa. sababta iyo sirta ku jirta warangada waxa weeyaan, wax kasta ood rabtid inay rasiin kuu noqoto ama qoyaanku kaaga bao, warangada lagu daraa. hadda dheecaanka uu leeyahay waad ujeedaa. hal qaado oo warangaan ku darayaa, isbedelka ku dhaca la socda. warangada sirta ku jirta waxa weeyaan waa taasaan isticmaalayaa. hal qaado qoyaankaa muujeedaa, waxaas faqfaqdahaya arki maysid meeluu maray markaan warangada ku daro. warangada ayaa nuugaysa, qalayl ayay noqonaysaa. durtaba uu soo qalalay, soo uma jeedid asxaabey. haddii aad rabtid inaad rooti ku cuntid ama khubis ku cuntid ama jabaati ku cuntid ama bariis ku cuntid, warangaha iskaga darin. yaa ha ku darin warango, waayo qalayl ayay kaaga dhigaysaa. marka bariiska iyo waxyaabahan wax kuu qooyo ayaad rabtaa. waa ka asxaabey, saas ayay kusoo baxday durtaba iyadoon 5 daqiiqo saarnayn ayay saa u qalashay. si fiican ayay u qalashay. waa taas, waa diyaar hadda. maasha Allah.
waayo hilibka markii hore ayaan karsaday. waa diyaar, saas ayaa lagu cunayaa. waa kaas, saas ayaa kusoo baxda. rootigii waa kaa brown, kaas ayaad ku cuni kartaa, laakiin aniga yaa haddaan rabana waan ku cunaysaa, haddaad rabtana waad iska daynaysaa, laakiin anigu sidan aan ku haystaaba. kukumbarkaaga, yaanyadaada, waxyaabahaaga kale waxaan ku leeyahay saladkaaga diyaarso. yaa alaabtan kale ayaan ku haystaa aniga. rooti iyo bariis iyo waxaa kuma haysto, just idinka ayaa idin tusayay. waad ku cuni kartaan rooti, maasha allah weeyaan. kaale arag ayuu kusoo baxay. waa qado healthy ah asxaabey, maasha allah, oo aada u fudud, oo brotiin ah, oo low carb ah, maasha allah. aada iyo aada ayaad mahadsantiin asxaabay. liketa, commentiga, subscribe haddaan hore noogu jeedin, hore noola joogin. dadka cusub, dadka nagu cusub waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada. mininkiinin waaye. dadkii hore noola joogayna waxaan leeyahay aada ayaad ugu mahadsantihiin sida aada noogu xirantihiin, sida sharafta leh aada noogu xirantihiin. aada iyo aada ayaan idinka mahad celinaya asxaabta qaaligaas aada noogu xirantihiin. markasta waxaan jecelahay inaan idiin soo geliyo waxyaabaha cuntooyinka cuntada ugu fudud ee igu tastisan, ee waxaan ku leeyahay dhadhanka, khaasatan faamiliga yar micnaha waxaan uga jeedaa qofka keligii ama 2 qof ama 3 qof. yaa waa cuntooyinka ugu daran moogta. qofku markay 2 qof yihiin waxay karsadaan ma yaqaanaan, qof markuu yahayna kaba sii daranba. alaabtaada yar dhacdhac ka siiso, casiirkaaga yar soo qaado, maasha allah, salla calaa nabi. yaa kaale iska arag. hawl badan iyo rabshad badan iyo bariis maanta dhan la karinayo, la sugayo, iyo baasto maanta dhan bislaanayso, iyo marna jirayso lama rabo. ilaa qiyaamihiiba bariis iyo baasto la soconayay, ilaa xaawiyaadan maan dhaha. yaa isku daya waxyaabaha ma aragtay brotiinka in la cuno, maasha allah. bariis iyo baastana waa cuntadeena, kama maarmeyno, iyo soor iyo waxyaabahaasoo dhan lagama maarmayo, laakiin waxyaabahan ayaa ka brotiin fiican oo kaale iska araga, maasha allah. aada ayaan idinka mahad celinayaa daawashada videoga asxaabta qaaliga. liketa, commentiga, subscribe-ka, yaa gambaleelkana furta si aad u ogaataan waxyaabaha ugu dambeeya ee channelka soo dhigo. sii share gareeya, uga faa'iideeya familigiina, asxaabtiina, ilmahaaga, caruurtaada, xaajigaaga, xaajiyadaada. yaa waa in laga sii faa'iideysto, maasha allah. isku daya inaad bal tijaabiya asxaabey, waad ka heli doontaan. aniga horta waan ka helay, maasha allah. kaale iska arag. maalintaad intaa qac isku siisid wax kale uma baahnid. qadada maalinta dhan fuul ayaad ahaanaysaa. yaa cashadana wax yaroo khafiifa ama asalaata yar ama fruit yar ayaad cunaysaa, ama waad u gembinaysaaba haddaa rabta inaad qaybta daayatka. koob caanaa ama hal xabo muusa dhac ka sii. kaale iska arag, hadalka ha yaraado. yaa maasha allah, waa kaas anaa idin cunaya. bismillaah. aada iyo aada ayaan idinka mahad celinaya daawashada videoga asxaabta qaaliga. waa mar kale iyo Lovely Channel oo idin leh soo dhawaada asxaabta. waxaan idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.